iyo suugaanta. kalaanku lahaa ina galayd kahay gadaalkii ee taalkuba ma joogeen hadduu keena tuludii baa lacad keliyaa kuma jareen kii uu quursaday ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaada. maantana halkayga intaan ka miiso maanbadda weyn ee mahmahada soomaalida idinla dhex muquuro moolka intaan u daadego maan idinka soo saaro luulka halkudhegyada taariikhda degaankeena xambaarsan 100 sano ka badan sheeko iyo mahmaho la iska warinayay ee uu aabbo waliba muddo dheer wiilashiisa u marinayay intaan idin soo dooro maan idinku talbeebiyo maan dib idin celiyo saacadda xilliyada intaynu gadaal u dhigno maynu 120 sano muddo ku siman baalasha taariikhdeena aan qorayn ka akrino sheeka baas caan ah oo soo noqodkeeda eebba laga magan galo warinteeduse wax ku qaadasho leedahay. waa tahay qiyaasta waktigu waa 1850kii waa buuhoodle iyo tuuraha markay rooban yihiin quruxda badan. waa hawska dhaqashada geela aad moodo inuu eebba ugu talagalay kolkii uu dhulkiisa meelba si ugu talagalayay. niman isbiray oo xoog iyo xoraba dad u sheegtay ayaa degan. hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo. dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn. kolkii ay ridato oo ay arina geesna u bixi weydo ma jirin dawlad loola carara aan ahayn odayaashii beesha ee inta badan taladooda la diidi jiray mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dab oogan sii oogi jireen. gaaloo dalka ma iman oo qori iyo rasaasi gacanta reer miyiga weli ma soo gelin. 2 waran hooto dhagaley ah gaashaan iyo faras baxdow ah qoladii meel ka buuxsataa geyiga ugu xoog ronay. wax la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo miraha ay dhirtu bixiso oo xilligaa lagu gaajo beeli jiray. suwar magaalo waa lagu diimi jiray inay wax kala maqan tahayna lama ahayn. muddo kolkii la joogo ayaa loo safri jiray beledada xeebaha ku yaal oo laga soo gadan jiray 2 go' oo bafta ah oo labood ku qaato iyo hadda wixii marashi ah oo dhadigoodka looga soo helo. waxay qabeen noloshaas ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo aan qolo qadan iyo haybad ku haysataa dhaqnayn. nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jiray oo isaga ayaa boqor isu ahaa ilaah mooye cid kalena wax uma ogeyn. maalintii dambe iyadoo jilaal ah ceel ma'wi ah oo buuhoodle ku yiil xoolihii loo soo aroorsado. dhawaaqii heesta geela ayaa isu baxday oo barbaarka uu ka qaylo dheer yahay amaba ka cod wanaagsan yahay waa laga jecel yahay. ceelka rag keliyii ma joogaane waxaa iyana jooga hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo amaariya soo aroorsay amaba dhaamanka la caraabi doona. kuwaas bay barbaartu isha iyo qalbigaba ku hayaan marka ay jawaabka ku dheeraysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan. hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo u bogidda dhadigoodka bilicdasan loogu jiro. hebel dhawaaqaysa ma maqlaysay, codkiisu ma ku jiitay, muruqiisa ma arkaysay kolkii uu wadaanta baacinayay weeye sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la gurya tago iyo weliba dhammaan maalmaha labada kal u dhexeeya. ha ahaatee nin waliba wuxuu ku dadaalayaa dhaqso intuu u shubto inuu casar dheere dhabbada cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday fii horaadkana uu xeryahoodii soo joojiyo. taasi waa caadada nindoorka maalinta ceel sida wacan isugu soo diyaariyee waxaa jira mid goor dambe ceelka xola la yimaada oo hadhowna gabalku ugu dhaco laguna maadsado. waxaa ka daran midka kala daadsan ee isagoo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga. ka kale yeeshii ayuu colbaqday leela halkaasi isku haleeyahay baryuu waktigu uga idlaadaa iyo weliba in la kahdo haddiiba uu qabaal ama wadaan ka helo tol iyo xidid kolba ciddii uu ceelka kula kulmo. maalintaas aanu hadal hayno ayaa waxaa ceelka joogay oo durbe xoolihiisii waraabsaday nindoor axmed samatar la odhan jiray oo burgal lagu naynaati jiray. waxaa burgal oo hawlihii shubaasha kadib meel ku nasanaya u yimid nin kala daadsan oo ay siqiimeen saabaan la-aanna uu geelaysi weli la oman yahay.
waxaa ninkaa la oran jiray baa la yidhi maxamed cabdulle liibaan. wuxuu maxamed burgal weydiistay geela ha ku shubtee inuu qabaalkiisa amaahiyo. marba haddii aanu u baahnayn geeliisina uu xokan yahay, waxay burgal ula ekaatay inuu yeero baryadii ninkii kala daadsanaa ee qabaal la-aanta xoolaha soo aroorsaday. maxamed oo weli qabaalkii haysta, geeliina baro cabbay, ayaa waxaa ceelkii yimi barbaar qoyska dhashay oo wuxuu doona hoo mooye aan maya lagula dhici karin. waa cumar aadan galayd. waa 20 jir ay dhowr iyo 10 rag ah oo wada gaashaan qaad ah ay walaala yihiin. waxaa ka daran oo goobaha xasradda iyo dagaalkaba uga hormara aabahood aadan oo geesinimo, madax adayg iyo hanti adduunyo aan cidi kula tartami jirin. burgal waa ninkii qabaalka lahaaye waxay isku degmi yihiin oo ay beel qura ka soo wada arooreen cumar aadan. aadan galeyd iyo wiilashiisa oo tabar iyo taagba ku daadanayay waxaa la deganaa beelo dhan oo hooskooda harsanayay. saha colaadeed maalintay joogtana gaashaankooda ku gaban jiray. beelahaas dallada difaaca aadan galeyd iyo beelihiisa ku hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa. isaga iyo intii la masaaxayna uma fududayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan tala kasta oo qoyska ay dan wadaagta ahaayeen ka timaada. taas isaga oo ku tashanaya, ogna burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horeeyaan, ayuu cumar qabaal la-aan geelii soo aroorsaday. burgal oo aan weli nasashadii u dhammaan intuu soo abbaaray ayuu ku yidhi, kacow qabaalkaaga ii keen aan geela ku waraabsaday. halhaleel ayuu isna u beegsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay si uu cumar qabaalka uga keeno. maxamed wuxuu jawaabay, geelii barbaa iga oomane ii kaadi aan israaciye. burgal baa inta cumar kusoo noqday intii uu maxamed ku yidhi. cumar baa inta burgal canaan ku afuufay kol labaad dib u celiyey. markaasna qabaal la-aan ayuu maxamed kala soo noqday. cumar aadan oo dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku ololeen ayay cadab degsiisay oo inta burgal haaraan iyo canaan ku asbaysiiyey mar saddexaad dib u celiyey, uguna hanjabay hadduu moogan faramarnaan ugu soo noqdo daqas dhiigle inuu ceelka kala caraabi doono. labada nin ee burgal dhexdooda kabuhu kaga dhammaanayaan waa maxamed iyo cumare. waa ilmaadeer awoowaha ay ku kulmaan uu aad u dhow yahay. mar saddexaad ayuu burgal ku noqday maxamed oo aan biyasiintii geelu u dhammaan, kuna yidhi, cumar baa qabaalka doonaye maxamedow biyo dambe oo aad ku shubta ayaana jirin. barbaarkii bilka buuxsamay buu ahaaye intuu yidhi waan caroonayaa oo murtis meel dhow ku mudnaa soo qaatay ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo dalooliyey. wixii biyo ku jiray ayaa mar qura ciidda ku arooray, halkaas buuna u dhaqan beeray. si degdeg ah ayuu burgal cumar ugu soo laabtay oo warkii uga tibixsiiyey. cumar oo hadalkaa loo sheegay, geeliina weli ka dul ololayo maxaad ka sugaysaa? dhulkaa la wareegay, xiniya taabad buu u qaatay. murtisku inuu qabaalka ku dhacayo uma qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay. wuxuu fali lahaa kama fakerin oo durba waxaa ku soo dhacay dagaal nin ka tashaday ma galo mahmahdii ahayde warankii uu situu qaabsaday. dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. kolkii uu la sinaa ayuu warankii kaalka ahaa ee uu maantoo kale u tuntay naaska hoostiisa kaga joojiyey. maxamed iyo qabaalkii oo is-agyaal la isuguna aaray ayaa la milicsaday. midi waa mayd oo waa maxamed, midna waa daloolaa oo waa qabaalka. ragalow, qof iyo qori ma la isugu aaraa mise dagaankeenna oo keliya ayay ka suurowday waagaa kana suurowda. waa la oogsaday diilaa gayigii taabatay balcad baa soo oogay. awal waa la isdhex deganaaye waa la kala fogaaday. waa la isu guursamaaye waa la kala ufooday. waxaa muuqatay haddii aan halhaleel wax looga qaban dagaal sokeeya inuu lama huraan noqon doono. talaxumo meeshii ay joogto talaficina way joogtahay. odayaal baa markiiba isxilqaamay. aadan galayd oo wiilal dhowr iyo 10 kale wagan fardaahay xeradiisa usoo hoydo. dhowr bahood midba habeen u cadaaba. geel kun halaal lagu sheegana dambaaba ayaa waa cumare ninka dilay dhalay. odayaashii waxay tala ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 halaad. 100kaba in reer aadan galayd laga qaado xeerku ma ahayn, wuxuu ahaa intay magwadaagta ahaayeen inay wada bixiso. waa la ogyahay oo reer aadan qayb yar uunbaa magtaa kaga soo aadaysa. sidaa darteed baan loo ordorosin dhibaato soo foolin. marba haddii nimankii uu ninku ka dhim doolo buu arooskiya
waxa iyo waxa baa dhacay kana halkaas bay ku tahay dad uu loo farin biladeed tahay ayaa ku maqan warkuba markii uu tahay mid jiray kan gees laga sameeyay diinada ugama duwanaan ismada uu jideeyay hada kiilayna uu ku aroosay ayuu dambiistay malaha wuxuu yiri iska taala gacantiisa ku dhigay kala hadaan Umar ahad waxyeelay jirin kan haw galayna ila xirka qayso bal laga aadan galay hadda qoriga ku fiiri kara haddii ku weeyeen wax kale ma jirin intii loo diray kiliskiisa ayuu furtay Umar ayuu malaha waan bayay oo waxay la ahaatay inuu ku banaan yahay wuxuu isbaba ku elahaan ku kacay intay aadan iyo doola ku maqnay ayuu doolihii ay dumalaadka ahaayeen geel xalaal iyo qiyaashan lagu xeelay Suuriya geelaas oo la hayo aadan laga filayo inay ku soo daraan tirada boqolka ka dhiman ayuu aadan doola ka yimid walaashin sifada uu ahaa kolkii ay ku soo fariisteen waxay ku yidhaahdeen aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad annaguna waanu ku sugayn wuxuu ku jawaabay oo bilaanan kala rayn waataa halista ah looma dhegtaagine ka sambaa loo qaatay geelii marka loo soo soocay tirada reerkiisa laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay wuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday cabar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi ragow dadka kutaayo geel ilaah baa xagadayda ku tugay oo iguma yara qaalin bixinteeduna waxba iguma aha wuu aamusay oo sidii midka kale madax hoosu foolay cabaar kadib ayuu haddana kor dhowray oo hadalkii inta watay yidhi waa run oo geel iguma yara waxaase foolxumo iyo ceeb igu ah qaalin igu magacaaban oo sunnada geelayga lihi geel kale inay ka dhex muuqato ama dar aan kayga ahayn ay soo gasho goortiina wuu ka dhaqaa haddana hadalkaasi quusan ayaa isku dayay inay u caqli celiyaan ayeeshee ku guulaysan waaye jawaabtii uu raggaasiiyey waxay noqotay su-aal uu ku soo celiyey iyadii oo wuxuu yidhi walmays xoola naqaane geelayga ma laga helayaa mid aan sunnadaydu u dhignayn waxay ku yidhaahdeen maya aadan wuxuu jawaabay haddaba sideedaan ku bixiyaa ummadda miyaan hasha ka leefaya waan kolkii laga waayey oo waana lagala quustay ayaa dib looga soo noqday bulaan baa aroosmay raggii ninku ka dhintay eegiga carac saabatay waa la isdiisiyaaye kibirka iyo cayaayirka uga dhaqaalay Umar ninkuu Maxamed ku baxay oo wanaag iyo raganimo lagu yaqaan darteed Umar aad loogu nayaasi jiray ayay arrintii ka foolxumaatay wadaqa laacan haddii inuu ku dhaqaynayo ayaa u muuqatay sababtii inuu la hadlo ayuu ku tashaday inuu ka dhacdayo waxa laga doonayaa inay aad uga yaryihiin waxa lagu daboolayo nabad tulid lagu helayaa inay cilla ka qaadato tahay inuu ugu masaleeyo ayuu go'aansaday wuu usoo galo fariistay wuxuu ku yidhi aabbow hashaa bixi oo saddex waxyaalood darteed ku dar aadan galeed baa inankii inta indha dhuursiga ku eegay ku yidhi bal war saddexdaad sheegaysaa waa maxay Umar wuxuu yidhi waa marka koowaade anigaa ninka dilay oo madda tirsaniye waxaa ku dootay waa marka labaade anigoo 12 jira ayaan talada kolka u galay anigoo maanta 20 jira ha iga saarin oo haddii la idilo dib dambe ka idili maayo waana ku dar waa marka saddexaad ninka dhintay waa sokeeye dibad sokeeyana lama hayn kare kaana sunida ku dar aadan galay hadal nacad ayuu hadalkii inankiisa u qaatay mar qura ayuu Umar soqon uga ekaaday sidii isagoo si weyn oo iljeeda ka dabeebanay ayuu aadan cod cara ka buuxiyo ku jawaabay oo yidhi war wiilka iska laguma ceeline ma uurka hooyadii baa lagu ceelay wadacad halqabsiga noqotay ba iyo hood mooye hadalkama dambeyn falayaashii marka soo ururiyey iyo qoysaskii inta iska qaamay ka soo soocay kala ayay isugu noqdeen waxay isweydiiyeen arrinta aadankii sifada u ahaa uu sidaa ku yeelayay sababta ay iyada u islaynayso go'ashada halkii uu aadan xaajada iska taagay waxay dhalisay go-aan aan qaadashadiisa waqti dheer la isaga lumin oo ahaa nin waliba kulidii uu hortii geeliisa ka soo laameeyey inuu xadadiisa ku ceshado dheeraada nin ku yabo ahaa oo halkay ka maqnay soo toosiya la iska waa walaagina sidaas bay isha baalkeeda u toosisay maxaa dhici doona aafadu halkeeda ay kolka hore ka soran doontaa guryaheedaysa ku dambayn doontaa
markaa lama ogeyn ninkii waxbarad ahaatay uu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga inoo keenayaan. si xoog leh baa laysu dareensaday. ciiladii baa dabowday. daa'imaha gureed mooye qaangaar waliba qacda dhixi doontaa wuu u badbaadayay. aadan galeed wixii aan ahayn in aan dareen gelinin beesha kuma jirin. waxa dhacay iyo wixii uu falay sidii lillow ayuu inankiisii cumar u yeeray oo ku yidhi kacawgeeda horweynkaa u kaxee doolo iyo reerihii aan dayrtii hore arooska cusub ka asoosay. cumar wuxuu yidhi awraadkii nimankii ninkooda qabay aabihiisna ka diibsiiyey oo duulaana iyo waxaa isharay cumar oo geeriyey doollo u wada. balli dhowr kilomitir buu hoose waqooyi galbeed ka xiga ayuu eebba isaga hor keenay. ballaysina wacan intay u qaateen ayay halhayaal warmihii ugu boobeen dabadeedna fardihii ka sheelladeen. maalintaa ilaa maanta waxaa balligaa loo yaqaan balligii cumar aji. sidaa darteedna baa kolkii la dhaafayo la isku xusuusiyaa sheekadaas naxarinta xambaarsan iyo talaxumadii dilka barbaarkaa sababta u noqotay. kolka haddii cumar haadda lagu cashaysiiyey maweysaa dhowran, maxaa loo dambiigaa? maxaa dibadda loo seexan? dugsiyada maxaa loo hurdaa dacadka qaadooyin? waa la isguuraabiyey. dhalinyaradii cumar ay walaalaha iyo xigtada dhow ahaayeen ayaa garootay. geed dheer oo aan la laaci karin bishii ayay nabadii isku sareertay. odayaashii hortiida arrinta ka teliyey haddii aadan galeed usoo loodsani waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay. dhiig dambe oo daata inaan idinku budaalayn ayay istuseen. waxay isgooyeen nimankii cumar dilay markii koodii la duudsiiyey in erge loo diro oo waxay maadan yihiin ee xiga laga soo ogaaday. dagaalyahan haddana ergayahana oo ay aadan ilmaadeer ahaayeen lana odhan jiray cali baargooye ayaa ergadii hormaray. dhowr cisho kadibna intuu beeshoodii ku soo laabtay ayuu shir qabtay. aadan galeed wuu fadhiyaa. goor waa jaamac oo goobaha la isugu yimaado ka taliya haddii uu xuslinta waawaanta nabadeed looga fiican yahay isna wuu fadhiyaa. in hebel la yidhaahdaa ma maqna. madaxii ergada waa cali baargooye ayaa afkiisa la dhowraya. waa la dheeraray oo la sugi waayey. isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo aan nin kol dambe imaan doonaa saan iyo salaan hadalka uga kala goyn. shanqartii kolkay dhammaatay ayuu bilaabay oo yidhi habiyahow waxa aanu wadno nin waalan iyo ninuu wadkii galay ayuunbaa diida. wiil howgii makaatiraha ahaa ee geedka fadhiyey baa inta soo booday yidhi war aragta naga daayo noo sheeg waxa aad nimankii kala soo noqotay. cali baargooye wuxuu yidhi 3 arrimood ayaa nimankii ka wada. ninkoodii oo ay duutiyaan markiisiina ka haraan. cumar aadan oo ay 120 halaad ka bixiyaan iyo tolka oo wixii dhacay ka heshiiyey. wiil howgii makaatiraha ahaa ee geedka fadhiyey ayaa inta kol labaad soo booday ninkii ku yidhi maxaad adigu kaga talin lahayd? cali baargooye waa madaxa ergadee wuxuu ku celiyey weediisii ahayd waxa aanu wadno nin waalan iyo ninuu wadkii galay ayuunbaa diida. goor waa jaamac oo kaalkiisii inkaaraa gelgelaya ayaa su-aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey oo yidhi cumar aadan oo nool ma la helaya? cali baargooye wuxuu ku jawaabay maya. goor waa wuxuu yidhi nabadna la heli maayo. aadan galeed baa kolkaa kacay oo inta hadalkii boobay yidhi ma waxaan goor waa idhi mise waxaan ninkaas nacabka ah ee fariinta keenayay? goor waa waxaan idhi in adeerow hadalka tiriya ha igala noqon oo dadku weyska diyaaye weedhaad maanta tidhi beri iyo weligaaba ku adkayso. ninkaa nacabka ah ee fariinta siday waxaan idhi tala iyo talnimo midna kaagama baahniye wixii aadi tari lahayd adigu dhista. lagumaba raagine degdeg baa geedkii looga kala dhaqaaqay. ergayahankii taladiisa la quursaday waa cali baargooye ciil buu la carraabay. waxaa dhici doonaa sidii nin la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geligii oo idil ka fogaaday. farda iyo qalab dagaal wixii la haystay ayaa la isu soo faystay. nimankii cumar dilay kolkii koodii la duudsiyey way qaxeen oo 4 geed guureen. kol hadday nabadii ceel dheer ku shalwatay sababtii aadan galeed iyo qoorwaana loo taliyey maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo? waa waxba. subaxdii dambe ayaa waxaa duulay amaba dooxateeyey aadan galeed iyo 7 wiil oo dhalay iyo weliba qoorwaa niman ay wataan oo dhagar ku tashaday. waxay heleen 4 nin oo walaalo lagu sheegay kana tirsan beeshii uu cumar aadan gacantooda ku baxay.
sheekayaqaanadu waxay wariyeen oo yaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen ka sokow aadan iyo iyagu inay habrawadaag ama ilma habreed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin ur wada tiifay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talow isla doontay ma dareenka dadka ayaa lagu sirabaayey ayaan isweydiiyaa xaqiiqada aan duugoobin wax kastaba ha ula jeedee aadan galeersiiyey dugaag gaasi dubatay oo tulid baxsi ah ku soo baxay ayaa farxadi u dhamay kaalkii uu sitay ayuu si fiican u qaabsaday inta aanu ku bilaabin ayuu qoor waayeli war islaantii ku habaryarta ahayd mid u dhaaniya magacaa keliyay u reeb oo cabdigaa afartooda u raganimadoone isaga bita ka baaji aadan galeer wuxuu yidhi qoor waayow maanta ka hor intaa waad iga daantay warbihi waaye haddaan cabdi kima dhaqadaayo boos ilaawe maxaan ka dilaya qoorwaadkiisii kuma adkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii uu 3 cabdi ku jiro ku ruurtugay boosna uu ku sii daayey qoorwaa oo ereyga hooyday halhays u lahaa baa boos oo ka dhaqaaqay inta farta ku fiiqay aadan ku yidhi hooyday walle kaas unbaa ku dili doona maalintaas kadib dagaalo badan oo yaryar ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan iyo dooxataynba ayaamo badan baa soo dalleysdaray guryo doora la haawaday dumar aan yarayn baa atay xirtay carruur badan baa agoontooday 20 jir miiran baa gagooyinka la dhigay gamlan iyo guryo ba'ay baa labada geesba la soo diristay dagaalada yaryar ayaa waxaa ku soo saac baxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galeer liindi jiray ee uu dilka ka daajin jiray maalintii uu hortiisa walaalihii dhegta dhiigga ugu daray nin mintid ah geesina ah inuu yahay ayuu muujiyey loona aqoonsaday boos ilaawe isaga oo isu diyaarinaya dagaalo waaweyn oo soo fool leh ayuu u sadcaalay nugaal oo ugu horreysay meelaha fardaha la isku halayn karay laga doonan jiray fardo wanaagsan mid lagu ogaa ayuu u tegey si uu uga soo gato baxdow ciilkii hore loo baday uu kaga baxo waxay barbartamaanba ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday 9 qaalmood oo ugub oo geel ah inuu boos ka siisto goortii faraskii iyo geelii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba bowday qaalin marcurada oo igar ah ninkii faraska lahaa intuu qaalintii u bogay ayuu boos ku yidhi haddii aadan qaalintaa geela ku soo tobnayn faras igala tigimiy faraska iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina ninkii u tuuray wuxuu kala soo noqday faras aad caan u noqday oo hawd oo idil laga bartay arrintaas dadkii ay dhacday waxaa la isweydiiyey war dagaal waa lama horaane boos ilaawe ayaynu ku beegnaa waxaa la diray halkii u deganaa ha yeeshee waa lagu guulaysan waayey in dagaalada la soo geliyey isagoo hibanaya sidii loo galay ayuu ku jawaabay inuu ceelay igu ceelbixi maayo huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay nimankii boos ilaawe duulaan bareera ayay soo qaadeen waxaana dhacday goobta weyn ee lagu hoobtay taariikhdana ku gashay magaca ah daboolan inkastoo labada dhinac uu meydku gegnaa haddana nimankii aadan galeer iyo qoorwaa lahaa ayaa la basiyey oo halkaa lagu daaduumiyey maalintaas buu aadan galeer isna nugaal u sadcaalay oo faras ceebta ka mayra u doontay isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee uu boos faraska ka soo gadan jiray ayuu abbaaray ninkii wuxuu aadan ku yidhi aadanow faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku idhaahdo haddaad iga siinayso aniguna ballan baan kula gelaya aadan baa yidhi hawraadsan iyo guddoon ninkii faraska lahaa wuxuu yidhi wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan wixii eryadaana ay gaaraan xoolahaagu waa ku celi 12 qaalmood intuu guddoonsiiyey ninkii faraska lahaa ayuu aadan la soo laabtay faras isna hawd caan ka noqday oo qadow laaye la baxay aadan iyo raggiisii si bay isugu yimaadeen su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa la isla soo qaaday aadan galeer wuxuu yidhi aniga iyo boos sukaayo daaye oo 3 arrimood dartood iigu beega waa tan koowaade faraskayga qadow laaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan wixii eryadaana ma gaaraan waa marka labaade boos waa il qura anigana labaduba waa ii dhan yihiin waa marka saddexaade boos midigta oo qura ayuu wax ka tuuraa aniguna midigta iyo bidixdaba oo laba midiglaana hadalkama dambayne sidaas baa lagu faataxay
goobtii la sugayay ayaa dhacday. farda la hogsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isla soo baxay. waa barqa dheer, hootooyinkii iyo warmihii buu badbaal waliba loolinaya. soodaa la isdaray. maxaa nindoor dhulka yaal? maxaa garmadoobe xidmihii laga soo daajay degida jiifa? baxdow ninkii lahaa laga tuuray maxaa goobta saqlaynaya? goobuhu kala magac leh, tani waa rawax degan. dhinacba intii laga makalay wax kuma qayaasin jirin, dhinacii la batiyey ayuunbaa ceebta iyo magac xumada ahaan jiray. waa ayaanba ayaane, maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawa nimankii uu ku jiray. waa la baqa eriyey oo koodii lasoo gaaro warmihii iyo hootooyinkii lagu boobay. ninbase nin buu eeganayaae aadan galayd baa wuxuu meel yaro durugsan ka arkay boos ilaawe oo faraskiisii uu nugaal kala yimi ku jooga. qadow laayihiisii intuu nadigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hoosada ku dhufto ayuu qadow laayi horay u boori, isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabad keedal ku soo socdo. faraskii kolkuu sidaa horay ugu booday ayuu boos ilaawe aadan hooto ka gaarsiiyey oo jeedaya midig kaga xabaalay, iskana dhaqaaqay. aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya. faraskii buu ka dhacay. raggiisii oo bidhaanta qadow laaye oo aan lagu joogin soo kicisay ayaa u yimi, isaga oo xarigiisii faraska ku dhegan, naf umanina aanay ku jirin. waxay ku yidhaahdeen, war aadan, bal waran sidee wax kuu gaareen? isagoo taa haya ayuu yidhi, markaan tabar hayeyna tala ma hayn, hadda oo aan tala hayana tabar ma hayo. adduuni khatal waxay noqotay maahmaah wax ku qaada shalay. sidan dambe ismaaciil mire oo ka hadlaayay raggii kibray ee kibirkoodii ku khasaaray wuxuu ku soo daray ninkaa la yidhaahdo aadan galayd. wuxuuna yidhi, kalaankuu lahaa ina galayd kahay gadaalkiie kaarkuba ma joogeen hadduu keeno tuludiie baalacad keliyaa kuma jareen. si uu quursaday ragow kibirka waa lagu kufaa, kaa la ogaado.